Isbeddel weyn ayaa ka muuqda garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho. 27 sano kadib, diyaarad wada rakaab ayaa waxay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Diyaaraddaasi waxay noqotay diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Juba Airways, waxaana ay dad badan ay ka soo qaaday dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Badankood dadkan laga soo dejiyay xilli habeenka ah magaalada Muqdisho waxay yihiin dad xujaay ah oo ka soo laabtay xajkii gudashadiisii kuna sugnaa dalka boqortooyada Sacuudiga. Waxa ay dadkan markaad la sheekaysatay ku sheegayaan inay aad ugu faraxsan yihiin 27 sano kadib inay noqdaan dadkii ugu horreeyay oo rakaab ahaan kaga soo dega garoonka Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha, wasaaradda duulista hawada iyo sidoo kale hay'adda saadaasha hawada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay tahay arrin aad loogu farxo in diyaarad habeen ay ka soo degto magaalada Muqdisho maadaama nalalkii xilliyada habeenkii ahaa lagu rakibay garoonka diyaaradaha. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa socday dadaallada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay waday oo ku aadan in diyaarado xilli habeen ah ay ka soo degaan garoonka, sidoo kalena waxaa socday dadaallo ah in saadaasha hawada Soomaaliya maamulkeeda laga hago gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaa la diyaariyay goobihii loo qorsheeyay in saadaasha hawada Soomaaliya laga hago. Dowladda waxa ay sheegtay in dadaalladan ay sii socon doonaan toddobaadyada soo socdana ay si caadi ah xilliyada habeenkii diyaaraduhu ay kaga soo degi karaan garoonka isla markaana ay kaga duuli karaan. Waana dadaal iyo tallaabo hore loo qaaday sida madaxda dowladda ay sheegeen. Arrintan ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa dadaallada dowladda federaalka ee ugu jirto sidii wax looga bedeli lahaa garoonka diyaaradaha iyo goobaha kale ee bulshada ay sida aadka ugu kulmaan. Madaxda dowladda Soomaaliya ee wasaaradda duulista hawada ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen inay socdaan qalabayn kale oo lagu sameyn doono garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho si ay qayb kaga noqoto bilicda isla markaana uu la tartamo garoomada kale ee caalamiga ah ee ku yaala caalamka. caawa waa habeenkii noogu horreysay ee 27 sano ay habeen diyuurad jad ah oo weyn oo passenger wada ay soo degto falilaahi alxamdu si nabada ayay diyuuraddu ku soo degatay. Pilotka ayaan wax yar oo waraysi la yeeshay markuu soo degtay si aan u hubinno qalabkii aan rakibnay oo runwayga inay sidii loogu talagalay u shaqaynayaan. Pilotku war farxad loo siiyay wuxuu ii sheegay markii koowaad oo uu dul maray markii hore uu dul maray oo dhinaca badda ayuu ku degashada ku soo sameeyay. Markuu dusheena maray airportka dushiisa marayay 5,000 feet ayuu dhulka ka sareeyay. Wuxuu ii sheegay markaas inuu arkayay nalalka runwayga. Markuu soo jiray uu soo deganayay wuxuu ii sheegay asagoo 7 kilomitir noo jira inuu arkayay nalalka loo yaqaan bubble lights oo diyuuradu ku degtaan iyo runway lights labada uu arkayay 7 kilomitir asagoo soo jira distance dhulkana uu jiro 5,000 feet. Marka waa calaamad guud ah operationkii waa ku guuleysanay. qalabkii aan rakibnay oo loogu talagalay diyuuradu inay habeenkii isticmaalaanna sidii loogu talagalay oo standardka ay u shaqaynayaan. Marka diyuuradaha kale iyo airlines kale dhammaantood waxay noo tahay farxad in pilotkii noogu horreeyay caawa noo soo degtay diyuuradaha kalena ay ku dayan doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Horumarka dalkaada adiga u heeli.